habeenimo wanaagsan akhyaartaana daawatay meel walba dunida dacladeeda uga sugantahiin habeenku ha idin wacnaado shirkadda Somali Airlines oo dib u shaqo bilaabaysa. wasaaradda duulista hawada ayaa xooga saartay sidii mar kale muddo 23 sano kadib loo shaqo gelin lahaa diyaaradii Somali Airlines ee Soomaaliya ay lahayd. qorshaha socda ayaa u muuqda mid gabagaba ku dhow, waxaana la filayaa in toddobaadyada soo socda ay dib u bilowdaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ee diyaaraddaasi ay samey jirtay berisamaadkii. warbaahinta qaranka ayaa laga baahiyey in toddobaadyada soo socda diyaaraddaasi ay dib u bilaabi doonto duulimaadyadii tooska ahaa, waxaana dalka Turkiga uu door weyn ku leeyahay dib u soo nooleynta diyaaradii Somali Airlines. warar farxad leh, toddobaadyada soo socda waxaa si rasmi ah uga howl bilaabi doonaa garoonka aadan xadda ee magaalada Muqdisho diyaaradihii ugu horeeyey ee 23 sano kadib ku duula magaca Somali Airlines. waxaana hawsha lagu bilaabi doonaa 2 diyaaradood oo noocyadoodu kala yihiin Samir 9C Bartleaf B737-400 iyo diyaaradda kale ah SDA MSN 2443A. allow guulaha noo kordhi, sidaasi ayaa lagu daabacay barta arrimaha bulshada reediyaha dowladda. dib u soo noolaynta diyaaradii Somali Airlines ayaa ka mid ah dadaalada dowladda Soomaaliya ay gelisay wakhtiga badan, waxaana horey loogu guulaystay dib u soo celinta maamulka hawada Soomaaliya. halkan waa Muqdisho Online. habeenimo wanaagsan akhyaartaana daawatay meel